waa kuma tababaraha 27 jirka ee ka dambeeyay sirta guulaha ee kooxda Arsenal saaxiib hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro buuxi sharuudaha nagala mid noqon kartid Arsenal waxay ka mid ahayd kooxaha u dagaalami jiray afarta kaalin ee ugu sareeya ee Premier League sanadihii u dambeeyay laakiin sanadkan waxay ku dagaalamayaan ku guuleysiga horyaalka Premier League iyadoo 5 dhibcood ay ka sareyso kooxda Manchester City oo kaalinta labaad ku jirta sababta ugu weyn ee isbedelka keentay dadku aad uma fahansana waxayna u haystaan tababare Mikel Arteta iyo ciyaartoydiisa daayar hase yeeshee arintu waa ay ka fogtahay intaas waxaana jira qof kale oo gadaashiisa ka shaqeynayo oo wax badan ku soo kordhiyay kooxdani Carlos Coste waa 27 jir kooxda ka haya shaqada horumarinta ciyaartoyda kooxda wuxuuna Mikel Arteta ka soo qaatay Manchester City oo uu kula kulmay isagoo 24 jir ah waxaana markiiba si weyn u gacan qabtay Arteta inkastoo ay daadiisu tahay 27 jir handala Coste waxa uu haystaa liiska tababarnimada ee UEFA isagoo shaqada macalinimada soo bilaabay markii ay daadiisu ahayd 18 jir waxa uu ka soo shaqeeyay kooxaha Atletico Madrid iyo Juventus oo uu ku soo dhisay khibradiisa iyo sumcadiisa koorinta uu san tagin kooxda Manchester City dadka yaqaana ayaa waxay ku tilmaameen inuu leeyahay falsafadii Jose Mourinho oo waliba sidiisii u kacayo isagoo aqoon kororsi ka helay Walter Fred oo ay isla tababariyay saameynta badan ku lahaa Chelsea iyo Tottenham waxa kale oo uu ka soo baxay jaamacadda Porto University oo uu ka bartay cilmiga dijinta xeeladaha gaar ahaan kubadda cagta oo uu takhasus ku sameeyay markii uu Mikel Arteta helay fursad uu isku shaandeen ugu sameeyay shaqaalihiisa tababarka xilli ciyaareedkii ay ku guuleysteen FA Cup 2020 wuxuu markiiba u yeeray Coste oo si degdeg ah saameyn cajiib ah ugu yeeshay kooxdiisa waxa uu si joogto ah ugu shaqeeyaa sidii uu si shakhsi ah ugu dhisi lahaa awoodda ciyaartoyda uguna diyaarin lahaa kulan kasta waxa ka caawiya 6 luqad ee uu ku hadlo ee kala ah English sidoo kale Spain Portugal Faransa Italia iyo Catalan taasoo ka caawinaysa in ciyaartoy kasta uu kula hadlo luqadda uu fahmayo Coste waxa waqti badan ciyaartoyda kula qaataa qolka lebiska oo uu ku daawasiyo muuqaalada uu ku daraasanayo kooxaha ka soo horjeedo sidoo kale kaga dhaadhicinaya xeelada ay tahay inay isticmaalaan si ay guul ugu gaaraan hadba kooxda ay la ciyaarayaan